filsan Cismaan Ibraahim waxay si naxariis leh ugu codsanaysaa guud ahaan ummadda Islaamka oo dhan cid kasta oo muxsiniin oo jecel inay ajarka la baxaan inay soo caawiyaan Najma Xuseen Ciise oo gabadha iyadu dhashay daahaana jirta 10 sano oo muddo 2 sano la ildaran xanuunkaasi oo beerka oo shaqadiisii gabay waxayna ay sheegtay in dhakhtarro badan oo Soomaaliland geysay iyo sidoo kale dalka Itoobiya balse ay sheegeen inayna waxba ka qaban karin ayna u baahan tahay dalka dibadiisa waxayna ay sheegtay maamo filsan inay haysato caruur agoon oo ayna awoodin kharashaadka dhakhtarka kaga baxaya ayna u baahan tahay garab istaag buuxa oo ay ummaddu u fidiyaan qurba joog iyo qolqol joog intaba waxana uu codsigaygu u dhignaa sidan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu anigoo filsan Cismaan Ibraahim la yiraahdo oo magaalada Boorama jooga imika tani yar Najma Xuseen Ciise la yiraahdo oo idaadeeduna 10 jir tahay oo iga xanuunsanayso oo beerka xanuunaya la yiri halkaay Itoobiya halkaay Tirdhabiya meel walba la jigjiga ilaa Boorama xanuunkayga waxba way ka garan waayeen beerka xanuunaya la yiri oo beerka u bugta marka biyo sii daynaya marka biyo sii daayana beerku calooshay biyo buuxsamayaan marka naqaska ku dhigay waxna ma cuni karayso waxna ma cabi karayso daadeedu 10 jir weeyaan agoonna weeyaan 5 ciyaalo oo agoonan haystaa awaabahood 2 sano ka hor iyo geeriyooday marka ilaahay naxariista jannada iyadii ummadda Nabi Maxamed ba ka wada waraabsho marka inta yar 10 jir weeyaan daadeedu marka maxaan ku dhahdaayay aabaheedna 2 sano ka hor iyo dhintay oo geeriyooday marka daadeedu waa 10 jir marka xanuunkeygu waa beerka ayaan ilaahay beerka xanuunaya oo biyo sii daynaya wadankan waxba laguma qaban kara laga Afrika dibadahaas iyo dalalkaas tashade mooyaane dalalkaas shana awoodida aan ku gaari waayay awood aan ku gaaro ilaahay baa awood iska leh ma jirto marka walaalahayga muslimka ah ee meel kasta ay joogaan ummadda Nabi Maxamed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo taayir oo xanuunsanaysa ee beerka biyo sii daynaya Afrika waxba laga qaban kari waayay hay u soo caawiyaan ba walaalahayga muslimka ayaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaanba inayna ii soo duceeyaan ducaa ii soo wada diraan ma ka codsanayaa marka sidaasan in ilaahay walaalahayga muslimka ahow meel kasta joogtaan Allah in barakeeyo waana way ii soo duceeyaan waxa ugu tartiinba ducaadan iigu soo daraya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh baan wada salaamaya dhammaan meel kasta joogtiin intaasi kadib waxa iyaguna mikrofoonka ka daba qaatay maamo Ruqiyo oo ka damqatay xanuunka ay gabadha yar la ildaran tahay iyo waalidkeeda oo awoodin kharashaadka kaga baxaya maadaama ay haysato caruur agoona iyo sidoo kale xildhibaanad Saacada Cabdi Faarax oo kamid ah xildhibaanada dalka Norway oo iyadna aan ku kulanay guriga gabadha yar ee xanuunsanaysa waxayna carabka ku adkeeyeen in si degdeg ah loo garab istaago ama oo nahay dad islaama oo ay muhiim tahay in la istaakuleeyo maanta waxaan soo booqanay oo la joognaa yartan xanuunsanaysa Najma Xuseen waa yartir waa agoon daadeedu waa 10 jir weeyaan waxa weeyaan waa agoon weeyaan marka waa ilmo waxa weeyaan wax la'aan iyo xanuun ay isku bahaysteen weeyaan marka dadka muslimiinta waxaan uga codsanaynaa in ay ilmaha yar u soo gargaaraan waxa ay ku soo tari karaan marka xanuunkeeduna waxa weeyaan beerka ayaa shaqadii joojiyay marka biyo ayuu jirka ku sii deynayaa biyahaas kolba caloosheeda laga shubaa dawaanad aragtaan kulli sida ay tahay xaaladeedu qof kasto arkaa uu arkaya xaaladda ku sugan tahay marka waxa weeyaan in dadku sadaqaad waxa ay la baxayaan ilmaha ay ku soo sadaqadeystaan baan dadka ka codsanayna muslimiinta meel kasta ay joogaan khayr badan Allah idinka siiyo sadaqaduna waxay badbaadisaa qofka dhibta ku soo socotay ka badbaadisaa waxa weeyaan har uu harsada Ilaahay maanta qiyaamaha ayuu uga dhigaa marka insha Allah ilmaha waxaad ku soo sadaqaysan kartaan ku soo sadaqadeysta khayr badan baan idin rajaynaynaa waan agoon ilmaha yari agoontan in badan bii Ilaahay kitaabkiina ugu dardaarmay inaan agoomaha maaragtay aad aan u eegno aad wax ugu gargaarno insha Allah khayr badan baan idin rajaynaynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa anigoo ah xildhibaan Saacada Cabdi Faarax Abraar oo jooga Boorama waxaan maanta soo booqanay Najma oo xanuunsan Najma Xuseen oo xanuunsan oo dad arkaysiin ilmaha yar qof kasta oo damiir leh oo ama ilma dhalay ama muslimnimo ku jirta waxa weeyaan kama seexan karo hooyadaasi dhibaatada ay qabto waayo ilmahaaga xanuunsan tay qof wastaba uu garan kara xanuunka ay leedahay idin hooyooyin iyo abayaalba waanahay marka waxa weeyaan waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ee Soomaaliyeed meel kasta ay adduunyada joogaan qurqul joog iyo qurba joogba inaynu soo caawino oo isku damqano wuxuu yiri Ilaahay hadda dhulka iskaga naxariisataan samada niga naxariisanaya marka waxaan idinka codsanayaa in aad lamaantiin meel kasta aynu wada joogno aynu u damqano maalinta kaliya hateed in taayir biyaha laga shubayo
waxaa laga qaadaa $20 dhiig laga qaadayo lacag baa laga qaadaa waa agoon ubadkii kale xitaa hooyadaasi dhar wanaajay kaga timiday caruurtii kale agoontiina ciday kaga timid waayo dee tan yare xanuunsan bay la tacaalisa marka waxa weeye waxaan iga codsanayaa inaga aniga iyo idinkaba sadaqadu waxbay badisaa waxba ma yarayso weeyaan dee waxa weeye ajarna waan ka helaynaa ubadkeeniina waxbaan u qabanaynaa ubaxii soo baxay intaasaan idinku dardaarayaa وصحف عشق تلفزيون كسوم نيوز مقالة بورمي حرونتا قبل كاودل